بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي ونكسن داوديالي dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland kana daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland barnaamijka Kasmaal waxaan ku casuunaa dad yow kala duwan kuwaasi oo markaas aan ku tartano su'aalo kala duwan iyadoo aan la gaari doono lacag dhan 8 milyan oo shilinka Soomaaliland qof kasto tartamo oo kamid ah miiska yimaada hadii uu garto 10 su'aalood oo kamid ah markaasi su'aalaha aan ugu tala galay inuu ka jawaabo waxa uu heli doonaa lacag dhan 450 oo shilinka Soomaaliland hadii uu markaasi 15 su'aalood gaarno waa 750 oo shilinka Soomaaliland haduu 20 su'aalood gaarno waa milyan iyo badh hal su'aal ayaa jirta markaasi 8 milyan oo shilinka Soomaaliland ay noqon doonto barnaamijka ugu soo gabagaboobi doono waxaan aad ugu mahadcelinay akhyaarta kala duwan ee igula sugan stuudiyaha kuwaas oo laba jeer oo waqtiyadooda kamid ah caawin doona tartamo kasto halkan yimaada tartamayaashiina ay ku jiraan idinkuna meel kasto aad joogtaan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Kasmaal kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale ayaan idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka Kasmaal ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka Kasmaal waxa uu noqon doonaa caawa عبد الله محمد عبدي الله صعبيه السلام عليكم عبد الله محمد عبدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق عبد الماسك كسو دو برنامج كسمال عبد الله ودو ورا عبد الماسك ان عبد الله واحد وربحينك السنه قردت هاي halka degan tahay aniga daawadayaasha baynta warbixin siin karto ان waxaan ahay arday horta waxaan deganahay xaafada calaamada magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Hargeysa ma sha Allah kulliyadda sifirna injineerinka marka qaybta dhismaha maxaad ku jeclaateen dhismaha qaato aad injineer noqoto kulley waxa qof walba wuxuu barto hobby buu leeyahay marka waxaan isticmaalaa dhanka iyo ujeedisa aad ku wanaagsan marka injineer noqoto jaamacadda dhameysay jaamacadda kale ku sii darsatay jaamacadda ku dhisatay dhismayaasha magaalada maxaa sideeda waa ka bedeli doontaa dhigto isku soo kordhin doontaa kulley hadii Allah weyn waaxid igu simo waxaan jecelahay inaan wadankayga gaarsiiyo dalka horumaray dhismayaashooda hadii la helo marka dadka wadada ku soo durkaya iyo guryaha wadada laga dhisay wax soo ku qorshaysan ka bedesho si wanaagsan barnaamijkan hore u daawadsiin kara in badan waan daawaday barnaamijka waa daawaday barnaamijka waxa xasuunataa laba jeer kamid waqtiyada inay dadweynaha caawin doonaan laba jeerna aynu mid laba ka toori doonaa daadkaada bismillaah waa ku bilaabi doonaa su'aasha koobaad waxayna oranaysaa astaamihii nabiga intii aan la soo dirin waxa caan uu ku ahaa astaamihii nabiga intii aan risaaladu ku soo digin waxa uu caan ku ahaa ba run sheegid ta gobayaanimo ja dhakhtar xa xoolo badnaan bismillaah qadaan cabdirasaaq su'aasha isku dayo run sheegido ba oo run sheegida ina laba ka tunid weynina naarsi naarsi hadana tan uu ku yeegaa astaamihii nabiga intii aan la soo dirin waxa uu caan ku ahaa ba oo run sheegida jawaabta su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay عبد الله سؤال اللباد وحين ورنسا حيوانك يسقون عندها كلا هيس إحداوا حيوانك يسقون عندها كلا هيس إحداوا ب رها تا جيرك شا كلونك ح دبقالها marka la saxeen dhammaan soo qabtaa sabaa dhammaan la soo qabtaa waxa arrin cusub kale tirsaaqow su'aasha haddaan isku dayo kalluunka ma ja oo kalluunka xayawaanka isagoo indhaha isku haya seexda waa ja oo kalluunka indhaha kala haya xayawaanka isagoo indhaha kala haya seexda waa ja oo kalluunka jawaabta su'aashaas ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxayna oranaysaa Kigali waa caasimadda
Kigali waa caasimada ba Namibia ta Mozambique ja Burundi ha Rwanda Kigali الله فرطان أنا لا بشر لا بشر هل تدوينين ورس لا بشر تدوينها تدوينات النولي حبيت نقار كيمي تقالي أنا كده حلو واقع داود يالنا نعاوسان ما نبغى هاي أنا جايو عبد الله وحن مرنا صدح سؤال شنا واحد ورنا سا Kigali waa caasimada Namibia Mozambique Burundi Rwanda imise qof ayaa la waa ba oo waa caasimada Namibia imise qof ayaa la waa ta caasimada Mozambique imise qof ayaa la waa ja caasimada Burundi imise qof ayaa la waa xa caasimada Rwanda okay asku soo noqono Abdallah badi dadkaasi way ka aamuseen horta xaasidnimo kama waxay qaldina صح laakiin ilaa 35 qof oo student la shaqo xinu weeyaan waa xa oo waa caasimada Rwanda waxood waa soo jeedin laakiin go'aanka adiga iska leh صح كل عبد الرزاق marka hore min garaneen laakiin waxa laga yaabaa iyagan ku raacna dileera yaa ku raac tiyagina qaldaan marka waa caadi maasay hadayna saxaan adoo hadayna saxaano qaarkood baa de lacag yeelanayo qaarkood baa gurguursanayo qaarkood baa dhaqaale yeelanayo engineer صح Abdallah markuu yimaada صح qodii kasmaal su'aasha inaga caawisay daadto iska gooniyo loo sameeyaa su'aal guriga qadaraaskiisa laga lacag sana waaga Kigali waa caasimada xa oo Rwanda ilaahan anigi Abdallahna waan ku raacnaa anigi Abdallahna waan ku raacnaa jawaabta su'aashaasi ayaa wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha afraad waxayna odhanaysaa Abi Lahab xaaskiisii waxa la oran jiray Abi Lahab xaaskiisii waxa la oran jiray ba Arrawelo ta Jamila ja Saadiya ha Rafa Abi Lahab xaaskiisii waxa la oran jiray تبت إذا أبي لهب سؤالك شو دكت وامرأة حمارة الحطب في جيدها حبل من مثل جودا لبت بدنا إذا صح جميلة الرفع برساق واحد يفتح سؤال شيء حق أو رفع حق أو رفع هل مرة تدوينها هنا لبكة تورنا ولا ما تشرين وارسل صح دام يعني السكوت الدويين اوكي لو اكتر لما كم إذا يعني كتوري دونا رفوق كديس مركان وعسوس عليه تأوه جميلة يشأوه سعدية بساقو في أشياء سبحان في لي يعني تهاي تأوه جميلة تأوه جميلة أبي لهب حاسكيسي waxa loo oran jiray ta Jamila jawaabta su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha shanaad waxay oranaysaa dagaalkii Xudaydiya waxa uu dhacay sanadkii ba saddexaad ee hijrada ta afraad ee hijrada ja shanaad ee hijriyada ha lixaad ee hijriyada dagaalkii برساقو سؤاشنا زينها نودي واقع مر لبعض أيام شغلنا نعاوسان شان أيام مرنا سؤاشنا واحد أورنسا دقالكي
xudaydiya waxa uu dhacay sanadkii saddexaad ee hijrada, afaraad ee hijriyada, shanaad ee hijriyada, lixaad ee hijriyada. imise qof ayaa la dagaalkaasi waxa uu dhacay sanadkii saddexaad ee hijriyada. imise qof ayaale waxa uu dhacay sanadkii afaraad ee hijriyada. imise qof ayaale waxa uu dhacay sanadii shanaad ee hijriyada. imise qof ayaale waxa uu dhacay sanadii lixaad ee hijriyada. aan isku soo noqono iminkana badi waa inaga aamuseen waana sida ugu macquulsanoo hal qofna aadaynta dee garanaysaa inay gacanta taagto ilaa 16 qof oo dadka stuudiga jooga kamid waxaynu ugu leeyahay waa sanadii lixaad ee hijriyada inta kale dhan waa ka aamusan صح كل سيدتي هربا إنه قرع علينا صح إنه قرع عندنا قلدان عندنا صح dagaalkii xudaydiya waxa uu dhacay dadweynaha weydiinay waxay nagu yiraahdeen oo sanadii lixaad ee hijriyada aniga cabdalana ku raacayna jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay lix ma soo gaarnay su'aasha lixaad waxay noqonaysaa dalka Denmark lacagtiisa waxa loo yaqaan dalka Denmark lacagtiisa waxa loo yaqaan kraan ta'bawn cha frank ha sterling dalka Denmark lacagtiisa waxa loo kraan pound franc Denmark wali lacag leena kama soo diraysaa wadarsaaqo su'aashun laba ka toor laba kamida ayaan ka tuuri doonaa su'aalahaas jawaabahooda laba kamid ayaan ka tuuri doonaa laba kamid ayaan ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay ba oo ah kron iyo xa oo ah sterling دين سؤال شيء أيضا يسكت إنه حنقولنا صعبة أو كورونا. ذلك دان مالك لعكتي سواح الله يقانا با كرون جوابت السؤال شاسيا وذيك دونا جوابت السؤال شنا سدا سأيي صح كتاي. تضبط ينسوا قرني سؤال تضبط وحين ورثة. نيكي مركي نبي وهجرودي صور عديي إيه شيس كلا قلي وحوها. ninkii markii nabigu hijrooday soo raacdeeyay ee markii dambena heshiiska la galay waxa uu ahaa ba sanci bin yusuf ta hisaam ibn qarshi cha surayqa ibn malik ha jabal ibn yalmi ان haddaan cabdirasaaq su'aasha isku dayo cha oo suraaqa bin malik cha suraaqa ibn malik dadweynaha inaga dhamaadeen laba ka tuulaan inaga dhamaadeen ninkani waa ninkii nabigu hijroonay qalinay soo arkay wajishadu ku dhacday asxaabi markii dambana noqday sax ninkii markii nabigu hijrooday soo raacdeeyay ee heshiiska la galay waxa uu ahaa ja suraaqa ibn malik jawaabta su'aashaas ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay يا عبد الله محمد واحد سو قالني سديد حساسي النبي ترتكي ugu horeeyay ee baabuurta adduunka waxa la qabtay sanadkii tartankii ugu horeeyay ee baabuurta adduunka waxa la qabtay sanadkii 1890 ta 1894 ja 1898 ha 1900 ترتكي ugu horeeyay baabuurta adduunka waxa la qabtay ترتكا بابورت ما نوري ميكل شماخي ين لا بابورت بورت ليرين جدين صح سؤال هذا اسكو دايو حق او 1900 حق او 1900 كده tartankii ugu horeeyay ee baabuurta adduunka waxa la qabtay sanadkii 1900
go-aanka ugu dambeeya meel xasaasiya soo gaadhna waxaad ku eegtaa cabdirasaaq ba oo ku 800 tartankii ugu horreeyay ee baabuurta adduunka waxaa la qabtay sanadkii ba 1890 koodka sanadka taasan koodka tartankii ugu horreeyay ee baabuurta adduunka waxaa la qabtay sanadkii ba 1890 go-aankaaga u dambeeya taasan koodka cabdirasaaq tartankii ugu horreeyay ee baabuurta adduunka waxaa la qabtay sanadii 1890 jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay 1894 wada dhaweyn aad iyo aad lagu saxaabiyay cabdalla وهاجاك داود المركل أيام كلتي وناكسن دلنا ميلك استوى شوكتان وحنو يري دونا كقيب قاطع اللباد برنامج كقيب قاطع اللباد برنامج هو محمد داود يوسف محمد داود يوسف الله صعبين السلام عليكم محمد داود يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد داود كسو دو برنامج كسمه وندو ولا محمد واحد وربحيني قصة قلت دقنت هاي الشقة عندك كويس بقى إن الأرض هاي أنا يداود يشوف هذا وربحينا سيكرت وحنا مرغمارة ما شاء الله أستاذ ما شاء الله وحنا دقينا شعبك شعب قاعد دقنت dalkan in fara badan soo dhisay baad markii hore ha injineeradu wastaadin guriyo fara badan bay dhiseen dalkan hor fara badan bay qabteen maxaa dad barnaamijkan daawatiyan kale والله وأنت وضعنا كويس كذا برنامج كان والله صعب مر والله نروح حسين وش عارف برنامج كان سيدو كله مقامات هذا كتير ولا آدي أدوان حسين أي شو بالله شو نسوي محمد هذا حسنات الله بتشين الدنيا نعاون دونا هذه السؤال ويسكسو كان يرتاجان الله بتشين من لبينا كتوري دونا بسم الله هو كوب بلعب دونا سؤال شكوبات واحد كورنسا midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba cadaan ta madow ja huruud ha casaan waa ba weyn oo cadaan ba oo cadaan midabada oo dhan marka cadaanka meel fog ka muuqda marka waxa laga yaabaa midabada oo dhan marka imka light oo kale marka laga soo qaado marka light oo kale la soo qaado waa cadaan light marka la saga dhigo oo midi uu noqdo madow midi uu huruud bixiyo midi uu casaan bixiyo ishu kee ku hor dhacaysa markaa cadaan bay qabanaysa cadaanka midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba oo cadaana inaan laba ka tuurnayo way ku adkaysanaya diyaarad horta hawada duulasa weli هذه الشيء ده عدالة ما بين كيو كله هذه قربة الليل كبرت لا تبرت هاي بحسن كي مركا وقوم وقدر ديار ده اسمه بدر كسينا سأرجنا تعسان خوب الله أصلاً في ذلك عبر عكاسة خرجة عزام بيحس صار المركا واحد لقيه بينه عدان وش اللي هذا كويس وقاد مركا كو مقدر بال مركا إيش كود عدا أدي أبي كلمة يقول ده عسان كاس عسان كاس ميدا بدن أردن midabka ugu muuqa dheeri waa xa oo casaana jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay noqonaysaa ansaartu waa asxaabtii ba madiina loogu yimid ta maka loogu yimid ja madiina ka yimid ee maka tegay ha nabiga aad ugu dhawaa waa jaawiyan ja oo ah madiina ka yimid ee maka tegay may waxa weeyaan ba oo madiina loogu yimid nimankii madiina loogu yimid ansaartu waa asxaabtii ba madiina loogu yimid ba oo madiina loogu yimid ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay المهاجرين تما كسو قحيبه ويمي سو دhoweey diinta u gargaaran saasana saar laga bixiyay
su-aasha saddexaad waxay noqonaysaa banka aroori waxa uu ku yaalaa gobolka banka aroori waxa uu ku yaalaa gobolka ba gabiile ta awdal ja zalal xa togdheer wuxuu ku yaalaa laba mid ka tor laba ka mida ayaan ka toori doonaa aroori bankaasi waxa uu ku yaala laba soo saaray awdal togdheer iyo togdheer xa oo togdheer ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay noqonaysaa suuradda qur-aanka ah ee aayadaheedu ku dhammaadaan dhammaantood kordhow waa suuratu ba faatixa ta jinni ja tabat xa yaasiin xa oo yaasiina marka wax ku dhammaanayaan baynu ku idhahdeen kordhow an fatxati anti bay malaa noqon saamadigay marka waa suuradda yaasiin yaasiin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ياسين وآيات ياسين مركز لا سين كو أنا لما كنت نريد لنا نرسين دبنا داوديال إن نعوسان بنو بهان هاي أفر بان مرنا suuradda qur-aanka ah ee aayadaheedu ku dhammaadaan kordhow waa suuratu faatixa suuratu jinni tabad yaasiin imise qof ayaa le waxa weeye suuratu ba oo faatixa ah imise qof ayaa le waa ta suuratu jinni imise qof ayaa le waa ja suuratu tabad imise qof ayaa le xa suuratu yaasiin aan isku soo noqono faatixa waa laga aamusay suuratu jinni oo quluuxiyaa qul uuxiya ilaya أنه استمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وحين نقول إن هذا كولا تقف شنو ذا كنت شاء وطبضنا تبد إلى أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته حمارة الحطب في جيلها حبل من مسد إذا لا تنبين نقول شنو قاسم دينا سورة الجن ما قربان رأى تا أو سورة الجن يين وذيك دونا سورة القرآن كاي آياته ذو كل ماذان كردوا سورة تا جني جوابت السؤال شو نصير سايي صح كتاي قول حين ولا أنا ربح سنة وين الدلالة سؤال شنبا سوغان حسبي فاشيينتا ee talyaaniga xaruntiisu ahayd waxa ay ahayd xisbigii faashiyiinta ee talyaaniga xaruntiisu waxay ahayd xisbigii faashiyiinta ee talyaaniga xaruntiisu waxay ahayd ba malta ta roma cha qubrus ha milano Roma ta oo roma faashiyiinta talyaaniga xisbiga wad maqashay horta فاشت وتلونشي يا حاولت فاشت ماشي waxay noo harsan hal mar oo dadweynaha iyo hal mar inaan laba ka tuurna قرب السامة كده قرب ja oo qubrusa xisbigii faashiyiinta ee talyaaniga xaruntiisu waxay ahayd ja qubrus hal mar inaan laba ka tuurna iyo hal mar oo dadweyne weli way noo harsan way shabaan marna kala barkii meel xasaasiin soo gaan way ميلانو بدينا ميلانو ha oo milana xisbigii faashiyiinta ee talyaaniga xaruntiisu waxay ahayd xa oo milana go-aankaaga u dambeeya
كده هاي يا ميلانا كده ميلانا سندين حسبي فاشيين تاليانيga xaruntiisu waxay xaq Milano jawaabta su'aasha ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay lix baynu soo gaarnay dagaalkii Badr ninkii ugu horeeyay ee gaalada laga dilay magaciisu waxa uu ahaa dagaalkii Badr ninkii ugu horeeyay ee gaalada laga dilay magaciisu waxa uu ahaa ba Asad bin Abd ta Dafas bin Awan cha Hafiz bin Hajir ha Sumayyi bin Awad سمي هذا ha Sumayyi ibn Awad dagaalkii Badr كاسن شعر markii hore ku isfar fadhiistay ciidankii asxaabtii iyo nabigu watay iyo ciidamadii kale abjaad iyo kooxdooda هو هذا كويس kadibna rag baa la soo saaray saddex iyo saddex صح هو كويس صح سو بحي هو غانكا ha marka saddexdan Ali iyo ku jiray aduu saddexdii dhulka loogu tuuray gaalada kii loo hordiray inuu weydiiyay دبرك لا قاعد ya حاجه دم لا قاعد ha Badr markiiba waxa ay baariso wala soo saaray laba ragii laga adkaadun ba badinimo saddex wala soo saaray ma saddexdii هذا gaalada koodii loogu hordiray baa inuu yiri اسد يو سمي لبداس mid isku dhex jira nabaas isku dhaw aye balaba yato laba kamida ayaan ka tuuri doonaa labada ka shaqeynaa baa isku saaray asad daba Asad bin Abd dagaalkii Badr ninkii ugu horeeyay ee gaalada laga dilay magaciisu waxa uu ahaa ba Asad bin Abd jawaabta su'aasha ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay toddoba su'aasha toddobaad islaamku magaalada Istanbul waxa uu furtay sanadkii islaamku magaalada Istanbul waxa uu furtay sanadkii ba 1450kii ta 1451kii ja 1452kii ha 1453kii tamam maqalbe Istanbul halkan Turkiga Soomaaliya imika Usmaaniyiintii كنت قاعد بعد ba 1450kii أنا لما كنت نارتي أنا قدام بعد ما تاس تدويني هالمرة أنا أرسل سمار قار تاريخ ذا كله كتير وتشيراني أما مركي لفرنا يبقى شوقي دف إنك استعني هنا شوقي ما كوحل جان نولا يودي بنا ولا ينعويان ومن كنت قاعد عم بدي نقول تأكل كتك إسلامكم مقالة إسطنبول واحد وفرتستان كي كون أفر بقول كوي كتك هل مروا بينها رسمان مليان الدوين النعاوية ويودي وأجاك داوديال إن النعاوسان أيان شعلها هاي أنا جاي محمد داود تضبع يعني ملنا ميل حساسيا سوق أنا أدقو في رسالة السؤال شنو واحد يدورنا صار إسلامكم مقالة إسطنبول وحاو فرتي سنتكي إسلامكم مقالة إسطنبول وحاو فرتي سنتكي كون أفر بقول كونتكي كون أفر بقول كوبيا كونتكي كون أفر بقول لبيا كونتكي كون أفر بقول صدحيا كونتكي إمي سقف أياله وحا يصح كوتاي با كون أفر بقول كونتكي إمي سقف أياله وحا يصح كوتاي تا كون أفر بقول كوبيا كونتكي إمي سقف أياله جاء وحا يصح كوتاي كون أفر بقول لبيا كونتكي إمي سقف أياله وحا يصح كوتاي كون أفر بقول صدحيا كونتكي سوسان نقولنا بدي واقع مسيرو يا انت قرنا يوم بدافت ها انت قرني بدافت استاذن محمد داود قلدنا محمد داود يا كنت موقفه كم يدتك ان لا جوجا استوديو waxay nagu leeyahay waa xaq oo kun afar boqol
saddex iyo kontonkiya laba qofna waxaynu goynaa waa labiyo kontonkiya inta kalena waa laga aamusay saddex iyo konton kale nugu dawaa dadka badan ka raacay saddex iyo kontonkaasa ku raacna haddayna qaldaan saddex iyo kontonkaasi way maasiin way dadaalayeen wax sidaa gaarsiiyeen haddayna saxaana yar yar baabay u badnaayeene way dadaaleen aad buu mahadsan islaamku magaalada istanbul waxa uu furtay sanadkii 1453 aan ku raacnaa oo 1453 ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay marka lama loo sacabiyo qoladaayna saxdeed tirada su-aasha sideedaad taariikh baan inaga badiyey maanta dalweynaha Australia waxa uu xorriyadiisa qaatay sanadkii dalweynaha Australia waxa uu xorriyadiisa qaatay sanadkii ba 1900 ta 1901 ja 1902 ha 1904 afartaa gudaha xaada ha oo 1904 dadweynaha way naga dhamaadeen laba ka toornaano naga dhamaadeen maskaxdu waan dhamaanay baa maskaxdu way dhamaanay baa tayn tuujinna guriga marka la dhamaystirayo oo kale la xidhay liitarkii iyo binadii ka sareysay liitarkii inuu xidhay xabadan marka aad ugu fiirso dalweynaha Australia waxa xorriyadiisa qaatay sanadkii bada gudaha ba 1900 dalweynaha Australia waxa xorriyadiisa qaatay sanadkii ba 1900 go'aanka ugu dambeeyay dhexmarada isbedel gaarsiinays kowda dalweynaha Australia waxa xorriyadiisa qaatay dalweynaha Australia waxa xorriyadiisa qaatay sanadii ta 1900 dalweynaha Australia waxa xorriyadiisa qaatay sanadkii ta 1900 jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaa maxay tahay xabadda weyn la helay lacagta waddanka Tansaaniya waxa loo yaqaan su-aasha sagaalaad lacagta waddanka Tansaaniya waxa loo yaqaan ba riyaal ta franc ja shilin ha diinaar shilin ja oo shilin lacagta waddanka Tansaaniya waxa loo yaqaanaa ja shilin koodka sansa asaas yar maqlaan bari Tansaaniya bari baad maqashay bari maqlaa marka lacag ba ka soo gaadhay bisa mayu baa maqlaan waad maqasho lacagta waddanka Tansaaniya waxa loo yaqaanaa ja oo shilina sagaal ayaynu maranaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa su-aashani waa tii lacagta ku xigtay lacagta waddanka Tansaaniya waxa loo yaqaanaa ja oo shilina jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay Maxamed Daawud toban ayaynu soo gaadhnay su-aashani waa 450,000 oo shilinka Somaliland taariikh baa nagu badatay su-aasha tobnaad waxayna odhanaysaa sanadkii la furtay Qustandiniya sanadkii la furtay Qustandiniya waxa uu ahaa sanadkii la furtay Qustandiniya waxa uu ahaa ba sanadkii 1451 ta 1452 ja 1453 ha 1454 Qustandiniya laakiin Spain imika loo yaqaano labiyo kontonkii baan maray san taariikhda ku yar imsadi 1400 1452
sanadkii la furtay qustandiniya waxau ahaa ta 1452 su-aashani waa 450 oo shilinka somalilan laakiin maanta dhan soo soconay aad uga fiirsan maskaxda tooji dadweyne naga dhamaa xilligan kale inuu baahnay sama inaa laba ka tuurnaana way naga dhamaatay maskaxdii oo dhammaanayno halka ayna soo gaarsiisay oo 450 sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa 1454 su-aashan waa 450 oo shilinka somalilan sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa 1451 450 su-aasha waxaan u baahannahay inaan maskaxda tuujino ee lacag baan taagan sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa go-aan ka gaadh waqtiguna la dhacaya ja waa 1453 sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa ja 1453 sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa ba 1451 meel xasaasiyan marna xaw jaa 350 sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa ja 1453 su-aashani waa 450 oo shilinka somalilan sanadkii la furtay qustandiniya waxa uu ahaa ja 1453 الحساسية مرنا تستجاب الفرصة مركب وضم بساق وهاك قال صدح قلت له قدامي شاء وصدح يوكوتك قرقور دبو ما بهن قوانك هاك وضم بيه ويدانت عدك كل قال صدح قلت له قديس سلوى قلت له قديس سنة كيلا فرتي قسطنطينية وحوها جاء كن أفر بقول صدح يوكوتكي قالت أما صح صح أما قالت سنة كيلا فرتي قسطنطينية وحوها جاء كن أفر بقول صدح يوكوتكي سؤال شني أفر بقول يكون تكون أو شلك سومالي لنا سنة كيلا فرتي قسطنطينية وحوها شا كن أفر بقول صدح يكون تكي فوتك سنسا سؤال شني وأفر بقول يكون تكون أو شلك سومالي لنا سنة كي لفرتي قسطنطينية وحو أها كن أفر بقول صدحيو كنتوكي جوابت السؤال شو نسيها سايا
maxamed daa-uud yuusuf aada iyo aad baan kugu hambaliyeynayaa inaad ku guulaysato lacag dhan 450 kun oo shilinka somalilaana adiga oo aad tartamihii koytobnaad lacag ku guulaysatay bisha asir ramadaan aada iyo aad maxamed loogu sacabiyo maxamed daa-uud inaan sii wadanayno su-aalahaasi kor usii socon karno ilaa 8 milyan aynu gaarayno iyo inaynu dadka u banayno labada dadka u banaynaysaa aad iyo aad wagaag daawada mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijku waa Sidaam Yuusuf Faarax loo saacido السلام عليكم سدام يوسف فارح. وعليكم السلام ورحمة الله. كسو دو سدام برنامج كسمان. سدام أحد وربحين قصة الأرض هاي على دقنت هاي أنا قد أبي أشوف أنتي معلومات نسيكرت. أروح أنا أرضي دكتور عند أرنس يونيفرسيتي. ما شاء الله. فاكولتي انفورماتكس ديبارتمنت أي سي تي. ما شاء الله. حنا دقنا هي حافظة كلشن دقنا لحد كلشن. ما شاء الله كلشن دقنت. سدام برنامج كان هرو دعوتين كله. سفيان. سدام يلا سدام الكعصار نلقونه يا مي سدام يفرق ضد الكعص مع السمر نوقت سدام يوسف برنامج كان وضع معلومات في السماء طبعا اي برنامج واحد ابو حسن والله وجهي تدوين عامين دونان لما شهر نادي من لبان كتوري دونان دي وين وقت كذا بسم الله سدام وكو بلاد دونان سؤال شكوبات وحين ورنسا dalka weli magaciisu aanu isbedelin ee ilaa xilligii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee waa dalka weli magaciisu aanu isbedelin ilaa xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa dalka ba sacuudiga ta falastiin ja yaman ha suuriya su-aashaas aad ku dayo waa taadoo falastiina ta oo falastiina إلى وقت جي نبي قلنا لا إلى إمك ما يسوى سكريت بعد نقولي إن أنا بكرة تونيد ويننا وينهار سين سلام أد بسولو ينتبه لا بكرة رواية لا بكرة ميلا السعودية جيو فلسطين وين الداية وعسوس عليه شا يمن يحا سوريا وحق سوريا حق سوريا وقت قلنا بقى سوريا ما كلا تجين ما كلا قالوا ولا جيابا سوريا ما سوريا مدارس عاصمة سوريا كم عوينيد بقى دمشق ده عاصمة سوريا عاصمة ديس مركها انت نمك سوريا iyo way cha oo Yemen u disan cha oo Yemen dalka wali magaciisu aanu isbedelin ilaa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa cha dalka Yemen jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa jawaabta su'aashu sidaas ayay sax ku tahay ardu sham bal iskoon jiray Suuriya iyo inta sham waqtiga hore su-aasha labaad waxay noqonaysaa jidhka xubnaha qashinka ugu badan ka saaraa waa jidhka xubnaha qashinka ugu badan ka saaraa waa 40 ba labada keliyood ta midhicirka ja sanka ha kilooyinka waa ba labada keliyood kilooyinka marka aad ku qaslaan ma meesha marka la iska kilaakaleeyo wala qasla ba oo labada keliyooda shirka xubnaha qashinka ugu badan ka saara 40 waa ba labada keliyood jawaabta su'aasha si aynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa heesta tiraahda afqalaad aqoontu miyaa heesta tiraahda afqalaad aqoontu miyaa waxa curiyay ba qaasib ta ismaaciil cagaf ja cali sugule ha barkhad cas
سؤال شدد وين هم دمنا afqalaad aqoonti biyaa mina dhigaysa maya maaha iyo waxa ku jiri jirta waxaan doonaynaa inaad nacaawisaan su-aashuna waxay idin odhanaysaa heesta tidhaahda afqalaad aqoontu miyaa waxa curiyey qaasim ismaaciil cagaf cali sugulle barkhad cas imise qof ayaa le waxa curiyey ba qaasim imise qof ayaa le ta waxa curiyey ismaaciil cagaf imise qof ayaa le ja waxa curiyey oo iska lahaa cali sugulle imise qof ayaa le xa waxa curiyo iska lahaa barkhad cas aan isku soo noqono allah naxariisto horta abwaaniintan laakiin waxay nagu yidhaahdeen ja cali sugulle cod aqlabiyada ku raacna cali sugulle inaan ku raacniyna ka diidnaba inaga go-aanka iskala istaan ku raacna ku raacna ja oo cali sugulle ayaynu eegi doonaa afqalaad aqoontu miyaa waxa curiyey ja cali sugulle jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afraad waxayna odhanaysaa nebi ciise calayhi salaam waxa uu ku dhashay nebi ciise calayhi salaam waxa uu ku dhashay ba dimishq ta baytulaxam ja etoobiya xa saba سبا يوم بعد saba ama yaman مركب بيت اللحم وي تمام ta oo baytulaxama inaan laba ka tuurno hal mar iyo duweyne hal mar inoo harsan sama samaan hubnaa laakiin بيت اللحم وي كنت سنة nebi ciise calayhi salaam waxa uu ku dhashay ta oo baytulaxama jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay qudus su-aasha shanaad waxayna odhanaysaa abwaan cabdi iidaan waxa uu ahaa gobayaagii xisbiyadii gobonimadoonka ee abwaan cabdi iidaan waxa uu ahaa gobayaagii xisbigii gobonimadoonka ee n u f ta s n l ja u s b xa midna عبد إذن بالله كم كتير laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa waxaa isku saaray ba n u f iyo xa ah midna عبد إذن أنا يفتن حاجة كان national iska buuxbuuxinaa ishnaad unit forum ba ma nidhahnaa bise حكرت سنة كان يعني حاول منا حاول منا xa oo midnaba abwaan cabdiidan waxa uu ahaa gobayaagii xisbiyadii midnimadoonka ee ba n u f iyo xa oo midnaba باو أنا يفتح سوداوي ba oo ah n u f abwaan cabdi iidaan waxa uu ahaa gobayaagii xisbiyadii midnimadoonka gaar ahaan xisbigii n u f jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha lixaad waxay noonaysaa labadii nebi ee habarwadaagga ahaa waxay ahaayeen labadii nebi ee habarwadaagga ahaa waxay ahaayeen ba ciise iyo muuse ta sulaymaan iyo daa-uud ja daa-uud iyo ciise xa ciise iyo yaxye habarwadaaggu waa habaryar labada walaali carurta kale dhalaan sama habaryaro ay dhasho ama habaryartiba ay dhasho حاء وعيسى يحيى xa oo ciise iyo yaxyaa hal maroo dadweynaha inaa xasana soo عيسى يحيى كنت سنة حاء ciise yaxyan gudaysana xa labadii nebi ee habarwadaagga ah waxay ahaayeen xa ciise iyo yaxye jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha toddobaad dalka botswana lacagtiisa waxaa loo yaqaan
dalka botswana lacagtiisa waxaa loo yaqaan ba frank ta roble ja mark xa bula botswana weli lacag inoogama imanayana sama xa oo bulaas marka xa oo bula hal maroo dadweyne malana harsanaayen si ay qaar lacag ka soo qaatay ama mushaar lagu siiyo joogay botswana oo helaba bulada meel uga garto xa oo bula ku adkaysan dalka botswana lacagtiisa waxaa loo yaqaanaa xa bula ku adkaysanaysa waxay noo harsanaa wala jaanisay hal maroo dadweynaha un u dhibaysa waagaag daawadayaal inaad nacawisaan ayaan doonaynaa 7 ayaan marinaa su-aashuna waxay idin odhanaysaa su-aashu waxay idin odhanaysaa dalka botswana lacagtiisa waxaa loo yaqaanaa frank roble marki plo imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan frank imise qof ayaa le waa ta waxa weeyaan roble imise qof ayaa le ja waa mark imise qof ayaa le xa waa bula badi horta waa ka aamuseen taasi waxay noqonaysaa botswana iyo lacagtooda toonaanay is arag laakiin marka laisku soo wadudo ilaa 7 qofoo bula ayay nagu raaceen oo ay yidhaahdeen hal qofna mark buu yidhi inta kalena waa ka aamuseen bal ja oo maakina gida ja oo markia 7 qof iyo adiguba bula ahaydeen frank bulaas u dhisana buladiina saska dhisaasa dalka botswana lacagtiisu waxaa loo yaqaanaa xa oo bula hore ayuu sheegay sidaam ilaa 7 qofna waa ku raaceen jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa dalka botswana lacagtiisa waxaa loo yaqaanaa xa oo bula jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay ila soo qaad maxabadda su-aasha sideedaad waxay noqonaysaa dalka hindiya waxau xorriyadiisa qaatay sanadkii dalka indiya waxau xorriyadiisa qaatay sanadkii ba 1946 ta 1947 ja 1948 xa 1949 hindiya filimaantu baan isku baranay shaarub khan iyo amir khan iyo salmaan khan kooda laakiin ingiriiska in fara badan gumaysanay maxaa gandi ninkii la odhan jiray baa gandi xornimo dheer galay kadibna sanadadan mid ka mida buu ku guuleystay inuu isaga iyo qolooyinkii indiya xornimo doonka ay qaataan waxa 1949 xa 1949 dadweyne way naga dhamaan horta inaan 2 ka tuurnaano way naga dhamaan ku adkaysana marka ha dalka indiya waa xorriyadiisa qaatay sanadii xa 1949 jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waxa uu qaatay 1947 aad iyo aad lagu soo cabiyay waa hagaag daawadayaal mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay waxa ay soo gaadhay waqtigaan idiin soo gudbin jirnay weydiinta aad warcelinta kusoo samayn doontaan meel kastoo aad joogtaan guryihiina goobihiina shaqo iyo meel kastoo aad markaasi naga dhegaysanaysaan raadiyo hargeysa ama telefishinkaba naga daawanaysaan waxaana weydiinta inta aynaan u gudbin caawa aan idin soo weydiin doono barnaamijka kii ka horreeyay weydiintii aan idin soo weydiinay ay ahayd suuradda loo yaqaano caruuska qur-aanku waa suuradda loo yaqaano caruuska qur-aanku waa ba qasamic ta tabaarig ja tawba xa arraxmaan waxa ay sax ku ahayd suuratu arraxmaan dadweyne aad u tiro badan ayaa dabcan ka soo jawaabay oo weydiintaasi warcelin kusoo sameeyey waxaa nasiib u yeeshay markii sefarku kala xulay inuu ku guulaysto ninka magaciisa la yidhaahdo amiin cabdi yuusuf shirkadduna waa la soo hadli doontaa dabcan studioga ayagoo kusoo socday hadduu kasoo gaari waayo waxaynu
guddoonsiin doonaa hadiyadiisa barnaamijka xiga haddii alla yidhaahdo aan siin doonaa inta aynaan u gudbin weydiinta aan caawa idinsoo weydiinaya isagana barnaamijka kasmaal online ayaa dadweyne aad u tiro badan kasoo jawaaban kaasi oo si toosa markaasi abaalmarino kala duwan loo guddoonsiiyo waxaa nasiib u yeesho qofka ugu dhibcaha sarreeya inuu noqdo dadka su-aalaha ka jawaabayay toddobaadkan xamde axmed ciise oo joogta dalka faransiiska xamdi faransiiska joogta online de online ku faransiis iyo German iyo Talyaani iyo meesha doolaha isagu halkii qofku nad ku haysto marka nasiib waxa uu yeelatay inay markaasi qofka ugu dhibcaha sareeya ay noqoto kasbaan online uu la hadlay xamdana uu salaamay kadibna xamdi waxay noo soo dirtay maadaama faransiiska ay joogtaan ergisa joogin هذا أحمد إسماعيل ومركز طبعا أي تبي هذه ده يسوق دور هذا شوقة أرجسي استوديو جي هذا بين مركز كسر دوين إن استوديو سامر مركز أجد وجوده السلام عليكم هذا محمد إسماعيل عليكم السلام ورحمة الله استوديو تلفزيون قالك كسر دوين يا هذا وين دوي ولا ساعة المامي واحد وكيل كتهاي حمدة أحمد عيسى ها وشوفته فرانسيسكا صح حمدة أصحابتي بس فاميلي بانه سوق إثباتي وكل صار شرح كل شيء تاني برنامج كان كقولة ستة ها حمدور تونهم بلينا يدو فرانسيس شوكتيني أنت سؤالات بودجينا وقت وعشاء أي كسر جوابته صح حمدور كل صار الشيء أنا شركة يدنا أي تري خذ اللي يقصوا دي بس شركة كل صار صح حمدور تاني حاجة فرانسيس كأنك داون سوا لقي هذا وده ما يشوكتها تيفي ولا صعتها هدية لو قلت لك على حوي فلاش فورتشيا فلاش فورتشيا أو وايرلس أو مركزي سمتم إنترنت فلاش فورتشيا ده بس وخرج قرير منه إلا أقدر منه فرانسيس واحد يقول كويس هذا استماع شو اسمه هذا باشا مسؤولكا هي ده نوع ما صدق من قررنا هذه ده إن شاء الله هذه بقول سلام هذا بقول سعادة وهاجاك داوديال waxaad soo gaadhay waqtigii aad weydiinta aan idin soo gudbin doono warcelin aad ku soo sameyn doontaan waxaana booqan doontaan kasmaan online si toos ah halkan bayna isagana hadiyada dambe hadii la toddobaadada idin ku guuleysata aan ku guddoonsiin doonaa oo si online aad uga soo jawaabi doontaan hase yeeshee hadda waxay soo gaadhay xilligii aad weydiinta warcelin ku soo damayn jirteen weydiinta caawa waxay dooranaysaa nabiga xaaskiisu ka carari doonto maalinta qiyaame waa nabiga xaaskiisu ka carari doonto maalinta qiyaame waa nabi ba aadam ta sakariye ja luud ha shucayb marka aan ugu celiyo nabiga xaaskiisu ka carari doonto maalinta qiyaame waa ba nabi aadam ta nabi sakariye ja nabi luud ha nabi shucayb waxaad warcelinta saxda ah ku soo diri doontaan idinkoo markaasi lambarka gaaban ee 822 ayaa jawaabta saxda ah ku soo diri doontaan marka tix raacdaan aad eegtaan afartan anbiya aadam iyo sakariye iyo shucayb iyo luudba cidda ilaahay quraan ku sheegay in nabigi xaaskiisu ay de ahlu naar ahayd oo qoomkaasi la haligay bay ka mid ahayd maanta qiyaamana noqon doonto oo inay nabiyaduna jannada saa ku galaan xaaskiisuna naarta waxaad markaa kusoo diri doontaan lambarka gaabana 822 ayaad kusoo diri doontaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa akhyaarta igula sugan stuudiyaha ee barnaamijka qayb ka ahaa waqtiyadoodana laba jeer oo ka mid ah dadweynaha caawinayay waxaan leeyahay aad ba mahadsantihiin waxaan idinkana aad ugu mahadcelinayaa meel kastoo aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan radio Hargeysa ama aad ka daawanaysaa telefishinka qaranka Soomaaliland leeyahay idinkuna aad ba mahadsantihiin Ramadaan Kariim waxaan aad ugu dambeyntii ugu mahadcelinayaa akhyaarta magacyadooda xagga dambe ay ka soo bixi doonaan oo aan leeyahay aad ba mahadsantihiin idinkuna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.